السلام عليكم صاحب يال كسو دوادا كانال كيني النقاي ميدي يوتيوب اي فيسبوك بيج او عاد uga barateen warar sports oo xaqiiqda ku saleysan mar walbana ku dadaala inuu idin soo gudbiyo wararka ugu dambeeyay ee sportska waxa la idinka doonaya kaliya waa inaad ku xirnaataan oo aadan seegin wararka subscribe-ka like-ta sheerta iyo commentiskana waa dhankiina haddan aan u guda galna barnaamijkeena maanta weeraryahanka heerka caalami ee dalka Argentina Paulo Dybala ayaa mabda ahaan ogolaaday heshiis uu si xor ah ugu saxiixo kooxda Serie A ee AS Roma markii uu ka tagay Juventus ilo ku dhow kooxda ayaa u sheegay Reuters isniinta maanta ah Dybala oo la xiriirinayay inuu u wareegayo Inter Milan kadib markii uu dhacay heshiiskii uu kula jiray Juventus ayaa Roma u saxiixi doona heshiis 3 sano ah oo ku kacaya 6 milyan oo euro sida ay sheegtay wakaalada wararka Talyaaniga ee ANSA 28 sano jirkan ayaa Juventus kula guuleystay 5 horyaal iyo 4 koob oo Coppa Italia ah kadib markii uu kooxda ka dhisan Turin kaga soo biiray Palermo 2015 isagoo u dhaliyay 115 gool 293 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan Dybala ayaa noqon doona saxiixii afraad ee Roma suuqa kala iibsiga kadib markii ay yimaadeen khadka dhexe ee Nemanja Matic goolhaya Emil Svilar iyo daafaca Seki Selic Roma ayaa ku dhameysatay kaalintii lixaad ee Serie A xilli ciyaareedkii hore waxa ayna ku guuleysatay Europa Conference League intii uu hogaaminayay Jose Mourinho Chelsea ayaa Tom Glick u magacaawday madaxweynahooda cusub ee ganacsiga maamulihii hore ee kooxda City Football Group isla markaasna ah madaxweynaha Carolina Panthers ayaa la wareegi doona howl maalmeedka kooxda waxaa la fahansan yahay in Glick uu qaadi doono qaar badan oo ka mid ah mas'uuliyadaha ay hore u haysay Marina Granovsky oo iska casishay doorkeedii agaasimo bishii June bayaanka ayaa qayb ahaan u dhignaa kooxda kubadda cagta Chelsea waxay maanta u magacaawday Tom Glick oo ah 30 sano jir suuqgeynta isboorti iyo howlfulinta inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ganacsiga ee naadiga Glick wuxuu la wareegi doonaa mas'uuliyadda howl maalmeedka Chelsea FC oo ay ku jirto maareynta istiraatiijiyadeed ee ganacsiga caalamiga ah kobcinta dakhliga kobcinta ka qaybgalka taageerayaasha iyo u abuurista khibrado gaar ah taageerayaasha naadiga Glick wuxuu yiri Chelsea FC waa xarun isboorti oo hal abuur leh lagana yaqaan adduunka oo dhan waxaan aad ula dhacay himilada Todd Boehly iyo shirkadda Clear Lake waxay bulshada Chelsea udub dhaxaad u yihiin wax kasta oo ay sameeyaan waxaan halkan ku haynaa fursad weyn oo aan ku wanaajino waxqabadka guud ahaan guddiga anagoo ka wakiil ah qof kasta oo aan u adeegno Todd Boehly oo ah gudoomiyaha iyo milkiilaha ayaa yiri rikoorka guusha Tom ee hogaamineed iyo hal abuurnimo ee dhowr urur oo isboorti oo la ixtiraamo oo guuleystay ayaa ka dhigay doorashada cad ee jagadan xirfadiisa iyo waayo aragnimadiisa waxay noqon doontaa mid muhiim ah marka aan horumarinayno kaabayaasha muhiimka ah ee Chelsea FC balaarinta wax soo saarka naadiga iyo sumcadda kooxda oo aan u helno siyaabo cusub oo xiiso leh taageerayaasheena daacadda ah si ay ula falgalaan ciyaartoyda ay jecel yihiin tababaraha naadiga Leicester Brendan Rodgers ayaa daaha ka qaaday in Leicester aysan ku dhaweyn inay heshiis cusub ka saxiixdo Yuri Tielemans xilli ay xiiseynayaan suuqa kala iibsiga ee kooxaha Manchester United iyo Arsenal 25 sano jirkan hal sano ayaa uga harsan heshiiska uu kula jiro Foxes oo ah naanaysta Leicester waxaan loo ogolaan karaa inuu ku baxo ku dhawaad 25 milyan gini xagaagan Leicester ayaa doonaysa in ay Tielemans uu qalinka ku duugo heshiis cusub laakiin waxa la ogsoon yahay in xidiga heerka caalami ee dalka Belgium uu ka cagajiidayo inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo kooxda tani waxay la macno tahay in Foxes ama dabacooyinka ay halis ugu jirto inay bilaash ku waayaan Tielemans xagaagan soo aadan halka Arsenal lagu soo waramayo inay hogaaminayso tartanka saxiixiisa xagaagan Gunners ayaa hore 35 milyan kula soo wareegtay xidiga qadka dhexe ee Fabio Vieira laakiin Mikel Arteta ayaa doonaya in uu ku soo daro shaxdiisa isaga oo siinaya tayo dheeraad ah iyo dooqyo dheeraad ah oo ku saabsan aagaas dhanka kale United ayaa soo gashay tartanka iyadoo Erik ten Hag uu rajaynayo inuu sii xoojiyo qadkiisa dhexe kadib imaatinka Christian Eriksen isbuucii hore Red Devils ayaa ka dhigtay Frenkie de Jong bartilmaameedkoodii ugu sareeyay ee suuqa kala iibsiga laakiin xidiga reer Holland ayaa doorbidaya inuu sii joogo Barcelona mar la weydiiyay updates ku saabsan wada xaajoodyada qandaraaska ee Tielemans ee Leicester Rodgers ayaa yiri wax cusub ma jiraan haba yaraatee
ahaatee waa nin cajiib ah oo lala shaqeeyo. Waxa uu dib ugu soo biiray kooxda xil ciyaareedkii hore, waana isku mid. Tababarka aad ayuu ula qabsaday, wuxuu ku faraxsan yahay shaqadiisa, waana uu ku faraxsan yahay kooxda. Laakiin dabiici ahaan, hal sano oo qandaraaskiisa ah waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu wax walba u eegayo isaga iyo qoyskiisa. Laakiin hubaal waan ognahay inay ka go'an tahay inuu halkan joogo. Waxaan si fiican ula sheekaysan doonaa Yuri Tielemans isbuuc soo socda si aan si gaar ah uga helo waxa uu ku fekerayo. Laakiin ma isbedeli doonto haddii uu baxaya ama uu sii joogo 5 sano oo kale. Weli wuxuu noqon doonaa mid aad u wanaagsan. Markii wax laga weydiiyay in Leicester ay aqbali doonto in Tielemans uu qandaraaska jabiyo oo uu si xor ah ku baxo, Rodgers ayaa ku jawaabay ma huba xaqiiqda. Marka loo eego Yuri, waxa uu sii wadi doonaa tababarka iyo shaqada. Waxa uu diiradda saarayaa sidii uu u heli lahaa taam ahaanshihiisa iyo sida uu had iyo jeer ula joogi lahaa kooxda. Waa nin weyn oo ku dhex jira kooxda ilaa uu isbedelo. Waxaan siin doonaa wax walba oo aan ku sii hayo horumarinta isaga iyo kooxda. Waxaa jirta suurtagalnimo, laakiin waa inaan sugno oo aragnaa. Tielemans ayaa in ka badan 150 kulan u saftay Foxes kadib markii uu kooxda kaga soo biiray Monaco 32 milyan oo gini sanadkii 2019. Waxa uu dhaliyay goolal muhiim ah intii uu joogay Leicester oo uu ku jiro goolkii kaliya ee lagaga guuleystay Chelsea finaalkii FA Cup-ka ee 2021.